السلام عليكم والد dhalinyaro iyo guud ahaan bulshooyinta Soomaaliyeed talaalka may buu ku mid ah walaanka muhiimsan oo ka dhowr korna naftaana awlaadana dadka unug iyo guud ahaan bulshooda intii kale tilaabo sahlan oo badbaado leh isla xiligaasna saameyn weyn kale nolol bini'aadanka iyadoo ku horseedaas bushiyaal badan sida jadeecada dabeela qaahooda COVID-19 iyo bushiyaal kale oo lagu horseedo karo tilaalka dhammaan nagaarweynta Soomaaliyeed wali la tabiyay inay tilaalka ay xuquuq caafimaad iyo mas'uuliyad bulsho awlaada tilaalka qaadatay ma helayaan difaac dabiici ah iyo fursad aan helayaan inay si caafimaad leh aan koraan waana weelada mustaqbal nuurow dadka weyn goon ahaan dariska leh xaalada caafimaad wali tilaalka ku badbaadiyay dhibaatooyin caafimaad daro tilaalka wali noo kaalmeeyay bulsho caafimaad sheefeylay wali yaraayay qataro bushiyaalka iyo qarashka daawada awlaadii aada waana fursad in furan qof kasta tilaalka wali buu mas'uuliyad xuquuq iyo badbaado nagaareed fadlan ku qayb qaaday wacyigelinta tilaalka ku faa'iideyso waana ka dhiirigeli dadka kale silindeer bulsho laan fariintun wali wada jiraan siin darsiyaasay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada oo kaalmeysadaasa Save the Children iyo Gavi Alliance habeen wanaagsan qiyaartan daawanaysa ay ku soo dhawaada warka habeenimo TV-ga dalsan qodobada ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah saraakiil ka tirsan hogaanka baarista CID-da ayaa loo furay tababar la xiriirta dambiyada ka dhaca internetka wadareed Muqdisho loogu sameeyay qoysaskii shilka shalay ku galay gudaha caasimadda baarlamaanka Soomaaliyeena waxa ay ka dhiga adeegeen in min $500 Mareykanka ay u jaraan ciidanka difaaca ee kula jira dagaalamayaasha Al-Shabaab intaas waxay ahaayeen qodobadii warka habeenimo ugu door corona waa habeenimo ay sii bixiso sabti had ayaa soo galisay taariikhdan waxay ku beegan tahay 24ka bisha shanaad sanada 2025 ku soo dhawaada warka habeenimo inta ka dhameystiran shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir Jubbaland Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhameystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida airportka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah aynu ku bilownay saraakiil ka tirsan hogaanka baarista CID-da ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa loo furay tababar la xiriira dambiyada markaasi ka dhaca internetka ama tiknoolajiyada waxa warbixinta warkan ku eegaysa wariyayna Faadimo Cabduqaadir Xasan waxaa magaalada Muqdisho gaar ahaan hogaanka baarista dambiyada CID si rasmi ah looga daafuray tababarka la dagaalanka dambiyada tiknoolajiyada iyadoona uu daafuray taliyaha hogaanka gaashaanle sare Muxudiin Axmed Cusmaan waxaa sidoo kale halkaasi ku sugnaa taliyaha qaybta baarista dambiyada CID gaashaanle dhexe injineer Cabdifataax Daahir taliyaha hogaanka qorshaha iyo tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed gaashaanle dhexe Axmed Ciise ayaa qayb ka ahaa waxaa tababarkan bixinaya saraakiil sare oo ka socotay dalka Masar qabiirna ku ah arrimaha baarista dambiyada tiknoolajiyada internetka 2 isbuuc ayuu socon doonaa tababarkan maadaama uu yahay tababar muhiim ah waxaana si wada jir ah u qaadanaya xubno baariyaal ah kana howlgala CID iyo saraakiil ka socotay taliska sare ee ciidanka booliska Soomaaliyeed intaasi kadib ugu horeen waxaa hadalka qaatay gaashaanle dhexe Axmed Ciise taliyaha hogaanka qorshaha iyo tababarada ciidanka booliska Soomaaliyeed sharaxaad kooban ayuu ka bixinayaa ujeedka tababarkan loo bixinayo muhiimad gooni noo leedahay in halkan markii ugu horeysay CID la tababaro baaristu nooc kastaba ahaato hadda maanta waa noocii ugu muhiimsanaa oo dambiyada tiknoolajiyada lagu galo iyo internetka runtii waxaan aaminsanahay inaad aad ugu baahan tahay aqoontan CID haddaan hadda banaanka loo dirno waxa laga yaabaa hal qof ama laba qof in loo diro laakiin number inta in leeg in macallimiintii xagga ku bixinaysa inta halkan la keeno idinkuna aad uga faa'iideysataan ka bacdina dalka aad sii gaarsiisaan mabda'a iyo aragtida ka dambaysaas waa taa weeyaan marka waxaa loo baahan yahay inaad si adag aad uga faa'iideysataan maadaama macallimiintii iyo khubradii halkan idin keenay muddo 2 isbuuc buu soconayaa
gaashaanle sare Muxudiin Axmed Cusmaan taliyaha hoggaanka baarista dambiyada CID oo ugu dambeyn hadalka qaatay waxa uu la dardaarmay dhammaan saraakiishii loo furayay tababarkan iyadoona muddooyinkii dambe taliyaha uu xooga saarayay sidii tababarkan loo hirgelin lahaa isla markaana baariyaasha CID ay u noqon lahaayeen kuwa khibrad ama ku tayo ah baariyaasha kale ee caalamka ayna ula jaanqaadi lahaayeen CID-yada kale ee caalamka ku yaala. runtii markaan ka hadalno in la barto tiknoolajiyadaas oo ah cyber crime-ka waa takhasus oo u baahan waqti dheer u baahan muxuu ahaa dad aqoontoodii iyo maxaa la yiraahdaa kartidooda laga soo xulo ciidanka wali qaasatan hoggaanka baarista dambiyada. marka waxaan rabaa inaan idin kula dadaarmo runtii waxaad maanta hesheen fursad aad u qaali ah oo aydan helin ciidanka booliska Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan saraakiisha ka tirsan hoggaanka baarista dambiyada. waxaa la idin soo xulay in maanta tababarkan aad ku qaadataan hoggaankan isla markaasna ay idin siiyaan dad khubaro ah oo ku takhasusay isla markaasna aqoon u leh cyber crime-ka. waxaan rabaa marka inaad ka faa'iidaysataan tababarkaas muddada aad joogtaan halkan si taa la midaan la ilaaliyo waqtiga iyo runtii muxuu ahaa anshaxa inta tababarkan uu socdo. marka intaas ka baxo runtii waxaad dareemi kartaan maanta dadka walaalaheenna halkan la fadhiya oo ka yimid maxaa la yiraahdaa Masar waxay yimaadeen dalkooda labaad ay yimaadeen laakiin waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay yihiin saraakiil ka timid dal nabad ah reerkoodii iyo familkoodii iyo shaqadoodii ka yimaadeen waxayna halkan u yimaadeen inay caawiyaan. waad dareemi kartaan marka qof ka soo tegay dalkiisii ka soo tegay reerkiisii ka soo tegay shaqadiisii halkan yimid waxay leegtahay marka qiimaha uu macnaa runtii qofkaas uu nageliyay iyo wanaaga iyo sharafka ay noo hayaan ayaa meeshaas muujinayso. waxaan rabnaa marka maadaama waqtigaas ay nageliyeen waqtigeena si sax ah uga faa'iideysano. waxaad ogtihiin siyaasadda taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo guud ahaan hoggaankan oo ah in la tayeeyo baariyaasha ay qayb ka tahay runtii in maanta tababarkan halkan aan ka furno. muddooyinka ugu dambeeyay waxaan diiradda aan saaraynay sidii loo tayeyn lahaa baariyaasha isla markaasna maxaa la yiraahdaa aqoontoodii iyo maxaa la yiraahdaa iyo farsamada baarista in la gaarsiiyo meel aad u sareyso. waxaad ogtihiin maalmihii ugu dambeeyay xitaa inaan kulanno la qaadanaynay muxuu ahaa qaar ka mid ah jaamacadaha ku yaala muxuu ahaa Soomaaliya. qaar ka mid ah waxaan la galnay heshiisyo in la tayeeyo tababar la siiyo minxooyin xitaa maxaa la yiraahdaa lacag la'aan la siiyo baariyaasha. waxaan rabnaa marka qofka baaraha ka tirsan hoggaankan baarista dambiyada xer aqooneedkiisii in uu meesha ugu yar wixii hadda ka dambeeyay ay noqoto muxuu ahaa master degree. maanta waxaan taaganahay badge laakiin bari waxaan rabnaa qofka inuu noqdo macnaha master degree ama inuu yeesho takhasusyo kala duwan oo macnaha xirfadaha baarista. inta tababarkan uu socday isla markaana ay bixinayaan saraakiishan sare oo ka socota dalka Masar ayaa ah tababar muhiimad weyn ugu fadhiya dhammaan saraakiishan markaasi la siinayo tababarka wax badan ka faa'iidaya arrimaha la xiriira tiknoolajiyada. aaswadareedna waxaa loo sameeyay qoyskii shalay shilka ku galay gudaha caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. waxaa aaskaasi ka qayb galay wariyayna Abuukar Dayax warbixintan ayuu inooga diyaariyay. halkan iga dambaysa oo ah qabuuro ku yaala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir waxaa ka soconaya aaswadareed. waxaa lagu aasayaa qoys xubno ka mid ah aroos ka soo noqday kadibna la kulmay dhacdo foolxun oo ahayd shil oo qaar ka mid ah ay geeriyoodeen kuwana dhaawac yihiin oo wali ay yaalaan isbitaalada magaalada Muqdisho. waxaa halkan lagu aasayaa Allah u naxariistee hooyo Xabiibo Madaxay iyo sidoo kale gabadheeda Aamina Cabdullaahi iyo habar yar Gacaalo Madaxay oo saddexduba ka wada yimid xaflad aroos oo ka dhacday magaalada Muqdisho. shilkan oo ahaa mid aad u foolxun ayaa ka dhacay subaxnimadii Jimcadii shalay isgoyska Miranaayada oo ah halka kala barta degmooyinka Cabdicasiis iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir. dhacdadan waxay noqotay mid fajac leh waxaana Soomaalidu inta badan ay ku falanqaysay saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada iyagoo si aad uga argagaxay maadaama qoys dhan 3 qof oo waaweyn oo muhiim u ahaa ama ahaa tiirarkii qoyskaas ay halkan ku geeriyoodeen. ehelada qaar ka mid ah ayaa ka tacsiyeeyay waxaana ummadda Soomaaliyeed ay ka dalbadeen inay marxuumiinta u soo duceeyaan. bismillaah wasalaatu wasalaam ala ashrafil mursaliin. waxaa maanta inta ku aasne dadkii shalay ku dhintay shilkii mootobajaajka ee degmada Cabdicasiis ka dhacay. aad ugu xumahay waana ka tacsiyadeynayaa dhammaan muslimiinta oo idil Soomaalidana ugu tacsiyadeynayaa
maanta inta waxaa ku aasnay xaaji gacalo madaxey iyo xabiibo madaxey iyo gabadheeda aamino runtii waxay ahaayeen dad ahlu khayr ah oo ka fahmi karto janaasada ka soo qayb qaadatay inta khalqiga ka soo qayb qaatay aaskooda marka waxaa leeyahay annagana ilaahay gadaashoodana ma fidneeyo jannadii firdowsay haddii ilaahay ha ka waraabiyo inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun aladiina idaa asaabathum musiibatan qaaluu inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allah u naxariisto waxaan joognaa dadkii shalay ku geeriyooday shirkii ka dhacay degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxaan joognaa meeshaan lagu aasaa u naxariisto dadkan waxaa ka dhacay dil aad u xun wax kastoo ilaahay qadarina waxaa laabudda ah min wuquuci inay dhacaan waxaan ilaahay qadarina ma dhacayaan waxaa waayey arrintan oo dhacday ilaahay ayaa qadaray aan leenahay laakiin si ay ku baxeen ayaa dhib leh maarata xanuun leh ummadda Soomaaliya xanuun ku reebatay ilaahay ha udan naxariistan ayaan leenahay dadkii ku geeriyooday meeshaan waqtigooda ayaa ku qadarnay dadkii ka dhinteen oo ehelkaayo maanta aan joogno aan soo raacnay ilaahay sabr iyo iimaan Allah ka siiyo yacni musiibadan soo naqnaqatana ilaahay waxaan ka barinaa horta inay maaragtay mar dambe nagu soo laabanin shalaad oo qoyniyad subaxdii waxaan soo duugnay saas oo kale gabar oo shil ku dhimatay degmada Kaaraan oo baawar ku jiray ayaa maaragtay soo duugnay marka waxaa waaye shilkan aad ayuu u soo batay ilaahay waxaan ka barinaynaa ilaahay inuu u naxariisto ilaahayna shirkan mar dambe aan soo laaban ilaahay ka dhigan ka barinaynaa meeshan waxaa lagu duugayaa 3 ruux lagu duugayaa oo hal qoys ku ah oo hal qoys ka baxeen marka ilaahay ha wada naxariistan ay leenahay waqtigooda dadkan mootul fajadu ku dhacday ilaahay ha u naxariisto wadkooda galay waxa way gacan bani aadanina ku soo waastaan ilaahay ahlu jannaha ka dhigo wax kale oo sheegno ma hayno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaad nooga warantaa dadka inta lagu aasay imise ruux waa 3 qofood maxay kala ahaayeen waa laba isla dhalatay mid oo habarta waalidka weyn ee dhashay Allah subhanahu wa ta'ala ha u naxariisto dadkii ehelada iyo qaraabada ahaa ee ku geeriyooday shilkii ka dhacay isgoyska Miranaayada waxaan taasi u diraynaa ugu horeyn qaraabada ay ka baxeen aayaasheen iyo walaalaheen inta dhaawacna Allah bogsiyo waxaan rabaa in halkaan fariin ugu diro marka koowaad ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay geeridu mar walba meel ay noo soo jirto ma naqaano waa inaan maaragtaa camal wanaagsan mar walba aan ku hayno aan maaragtaa camal wanaagsan aan ku dadaalno marka xigtana waxaan maaragtaa u soo jeedinayaa oon u tacsiyeynayaa ehelada in ilaahay maaragtaa qalbiyada uu qaboojiyo ilaahayna u naxariisto naga baxday inta dhaawacana maaragtaa ilaahay noo bogsiiyo bismillaahi allaahu akbar walilaahi alxamdu faatixa الله ونحريست الله ونحريست أنا كن الله نو نحريست جنة إلهنا إلهي جنة إلهنا إلهي جنة فردوس إلهي هذا عشان الله سي إلى أذان فتوعنا غير هذا توع ماينه جنة إلهي جنة فردوسنا إلهي الله أنا عفي أنا كن الله سوا عفي أنت سواتي دينك وحلا وعديها يودتك لأنت معهن هو أنكم سانا لو ذا آدم ما هنا لو ذا مرة أما الشيخ هاو أما إمام هاو أما أوجاس وحربته هاو ما هنا لو ذا مرة ما هنا عمل في عني وبهنتي مركب وعدي الشيخ يوسف محمود حيل لما كلمة ضحضتكم مدار وكيمدي لكن الشيخ يوسف كلمتين خفيفتين راح إن شاء الله وحواي أعقل الناس شيخ شافعي محوري أعقل الناس ذاتك متك هو عقل بدن من ترك الدنيا قبل أن تتركه وقفك الدنيا كتجي أنت ينيدو كتجين الدنيا ولا كتجا هذا أوجين أو برنامج يوسف ككرس هراي هو muga waxaad u soo jeesatay xawaha ilmahaaga waa kugu koreen iyo marka waxa waaye way iska raaxaysay u joogo filad dhista laga wada adoon ogeyn intaadan ka tag waxa laga rabaa inaad adduunyo ka tagto intayna iidu ka tagin inaad ka tagtaa loo baahan yahay wa anaara qabrahu qabrigiisana nuuriya qabla an yaskunahu intuunan degin qabrigoona u imaan inaad nuurisaal rabaa awaamirta ilaahay uu ku faro aad fartoonto waxyaabo ka reeb aad ka reebtoontaal raba oo qabrigaaga aad nuuriso meesha loo camal falaa waa meeshan waxa waaye waa awwalu manzilin min manazil al-aakhirah fa inna jaa minhu qofkii marka uu ka badbaado fama bacda waysaru min hadduu malaakayinka su'aalo hooro oo ka jawaabo
ilaahayow gabdhahan jawaabta ku sug oo su'aalahan jawaabta ilaahay ku sug ilaahu jawaabta ku sug marka qofku hadduu jawaabtii ou haleelo ou ka jawaabo waxyaabihii la weydiiyey wixii ka dambeeyo cardiga iyo xisaabka iyo siraadkii oo la marayo kasii dambeeyo moogta qabrigaani taasaa kasii fudayd badan marba hadduu qabrigan qoftu ka badbaado wixii kale waxaa waaye iska shalalabay waa iska sii soco laakiin hadduu ka badbaadi waayo wixii kaloo kasii dambeeya kasii adag abukar dayax duleedka degmada ka baarlamaanka soomaaliyana waxa ay ka goos adeegeen in min 500 oo dollarka Mareykanka ay u jiraan ciidanka difaaca qaranka ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-shabaab waxaa kulanka baarlamaanka ka qayb galay wariyaheena Cabdisalaan Juulo Shaakir warbixintan ayuu inoogu diyaariyay xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ayaa maanta waxa ay dood adag ee ka yeesheen in lacago gaar ah xildhibaanadu ay u jiraan ciidamada macawisleyda ah ee dagaalka kula jira dagaalamayaasha al-shabaab tala soo jeedinta waxay ka timid isla qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxaana gudoomiyaha golaha shacabku isku dayay in cod gacantaag ah lagu ansixiyo balse qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa arrintaasi kasoo horjeestay xildhibaanadii goobta ka hadlay ayaa ku kala aragti duwanaa in ciidamada macawisleyda loo jaro lacago gaaraya $500 bilooyinka soo aadan waxa ayna sheegeen in macawisleyda kaliya ay ka dagaalamin gobolka Hiiraan balse meel kasta oo kamid ah gobolada dalka ay ka dagaalamaan taasina aysan suurtagal ahayn waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka oo arrimahaasi ka doodaya imaada cashuur dadweynaynu qaadanaa fatahaad biyaa imaada lacag baa la isku qori jiray waa la goyn jiray dhibaataa timaada waa la soo jeedin jiray waa la goyn jiray waxa lagu kala baxaa xildhibaanow waa cod haddaan aniga diyaar ahayn oo cod la igaga bato waa la iga bahalkaynayaa baarlamaanka dadweynaha xildhibaanada laga qaado qof kasta xildhibaanka lacagta uu qaato canshuur dadweynaha qaadanaa dhagaysta haddii la samaynayo xildhibaan cod baa leedahay dee haddaa rabtaa inaa qaynisaan guddoon waxaan kama imaan xildhibaan buu ka yimaaday xildhibaanada ka yimaaday 1500 maalinkii lagu darayay xildhibaan kasta wuxuu ahaa raalli waxaasi timaadaan guddi ha loo saaro haddii la diido waa la diiday guddi baa loo saarayaa haddaa diidid waa la diiday haddii la yeelana waa la goynayaa meesha waxa yaallana waa intaa laakiin baarlamaanka hal dabeecad uu yeesheen in la sacabiyo oo la qayliyo xildhibaanka xor buu u yahay amba mushaarkayna aan qaadano wax looga jaro sababtiin fi suurati al-baraa riwaayad wuxuu leeyahay dalha ibn abdillah ayadii dhaysay infiru khifaafan wa thiqalan wajaahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun marka la leeyahay idinkoo fudud iyo idinkoo culusba jihaadka aada tan jihaad ka weyn ma jiro in lala dagaalamo kuwa sharwarayaal ah kansar ah ummadan dhibaato intaasoo sano ku hayeen waxaan dhihi lahay marka dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun waxaa idin khayr badan in aan ciidanka wax u goyno waa waajib annagana saaran sadogtiin marka waxaa u baahannahay gudoomiyow in guddi la sameeyo 500 dad ka badan baxsan karaa jiro oo waa ogtaa marka jihaadka la dhaho jihaadka 500 waa ka sii badan yahay dadaa 2,000 inay baxsaan rabaan dadaa waxay rabaan jihaadka inay gabdhaha daabkooda baxsaan rabaan qaaraa waxaa rabaa inay wax badan baxsadaane wixii hayarayna guddi noo saara guddigaas qof walba jeebkiisa u galaa marka waxaan dhihi lahay hana koobin gudoomiyow 6 saac bar waa la dhaafay waqtigan la kulaanaya ujeedada muhiim ah soo koob labadan qofood aan siinayna maantoo kale gudoomiye waxa laga hadlaa waa ciidanka qaranka iyo ciidanka xaq u dirirka intaba 10 daqiiqo la siiyay ama 20 daqiiqo marka waxaan dhihi lahay xildhibaanada sharafta leh arinta laga hadlayo waa arin waajib diini ah marka waxaan idin leeyahay dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun waaye marka waxa laga rabo asaga la hadlaayo waxa la leeyahay maxaa tabartiina ah
oo u jari kartiin ciidankii maxaa tabartiin oo qofkaas jiran u jari kartiin laakiin inta la soo istaago xoogaa lagu jiraa cidna dhihi karta male annaga canshuurtana dalkoo dhanaa laga qaadaa beeralaydeena laga qaadaa oo dabadooda laga soo bixiyaa cid loogu hanjabay male dadka noo hanjabayna inta canshuur maba u taallo raalli ahaada ciidanka wixii tabarteena anaga u jarayna guddiha loo saaro maca salaam guddi la saarin farsamo loo samaynin oo la dhihin lacagta aan goyno ilaahuma la dhao $2,000 hala gooyo haddii la doono oo lagu heshiiyo oo la yidhaahdo intaana ciidamada daraawiishta ee deegaanada hala siiyo intaana ciidamada macawisleydan xuquuqda lahayna hala siiyo intaana ciidamada xoogga dalka hala siiyo war guddi farsamaa la saari jiray duuduubkii iyo xumaanta intii laga daayo war ciidamada in lacagta loo goo diyaar baa loo yahay laakiin wixii in waa dhaqaalo meesha hadduu soo galana musuqiisi iyo xumaantiisi iyo warxuntishmeedku wuu badan yahay miduna guddoomiye yaan la siyaasadaynin yaanan la xumaynin baarlamaanka waa ogol yahay in lacag la gooyo laakiin dad walba deegaan bay matalaan ciidamadana magaca ciidan baa laga wada yahay macuusleeyi baa jira ciidanka xoogga dalka jooga daraawiishtii deegaanada aan ka soo jeednay baa jooga waxaasoo dhan haddii wax in loo goo diyaar baa loo yahay dagaalkiina waa lagu jiraa waana la dhimanaya waa la dhaawacmayaa mudana guddoomiye arrintaas ha laga fiirsado guddina ha loo saaro waxa la goynayana 500 yuusan noqonina ha laga badiyo laakiin ha loo simo xuquuqda cid walba meesha la siinayana ha la garto bannaanka lagu soo shiyo ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa sheegay in guddi loo saarayo lacagta loo jarayo macawisleyda dagaalka adag kula jirta dagaalamayaasha al-shabaab santahay labaana sharafta laba mahadsantihiin labadii hindisi shaqeed waa ansaxinay arrinta kale wax ku heshiinana guddi u saarno fadhigaana maanta waa inoo yahay qodobka ayaa ugu dambeeyay warkii habeenimo aad kala socoteen TV-ga dalsan xaruntiisa dhexe magaalada Muqdisho Ismaaciili ayaan u mahadcelinayaa oo warka habeenimo soo saaray anigoo Cabdi Fataax idin la socodsiinayay kulanti dambe nabadgelyo